ورحمة الله وبركاته. magacayga waa ayaan bashiir waxaan ahay dhakhtarad ka shaqeysa Norway. waxaan halkan idiin soo jeedin doonaa wacyigelin la xiriirta tallaalka COVID-19ka iyo sidoo hadee uu jirka uu marka qofka la tallaalo uu shaqeynayo. waxaan hadaba halkan ka hadli doonaa maanta in kow sida uu difaaceen uu u shaqeeyo sida uu difaaceen jirkeenu uu dhisan yahay labo sida uu tallaalku uu jirka u saameyno hadii marka qofka la tallaalo sida uu jirka uga dhex shaqeyni saddex muxuu ahay tallaal iyo tallaal la'aanba maxay keenaan iyo maxay ugu dambeynta gunaanad iyo talooyin marka waxaan ku bilaabi difaaca difaaca jirkeenu horta wuxuu ka kooban yahay dubka oo dubkeena jirko dhan buu daboolaa meelaha bambanaan sida afka iyo indhaha iyo sanka oo kalena waxay leeyihiin qoqoyaan wixii virus iyo germs jirka gala jirku iskaga soo saaro muxuu ahaayay wasakhda uu iskaga soo saaro iskaga celiyo germskan uu ku dilo tima muxuu ahaayay sanka iyo meelahaas oo kalena iyo hawo mareenada waxay leeyihiin tima yar yar oo sidan oo kale isaga soo xaadha sidii xaaqin oo kale wixii jirka gala dubkana hadii uu dabooliyo waad aragteen hadii meel ku dilaacdo ama uu dhaawac kugu dhaco inay qofka si dhaqso hada jeermiska iyo wixii uskaga uu ka faa'iideysan karo xanuun u keeni karo marka dubka waa difaac muhiim kamid ah wuxuuna kamid yahay difaaca guud difaaca gaarka ana waan ka hadli doonaa difaaca guud waxa kale ah dacan dhuufahan idin sheegayo iyo kasoo qaad inuu muxuu ahaayay viruska ama bacteria ama hadda xanuunka uu jirkeena uu galo waxa uu la kulmi difaaceena unugyada difaaca oo aad sawiran karto askar oo kala ah oo muxuu ahaa intaas wax kontaroolayo oo jirka la socdo wixii cusub hadii uu soo galo isla markaba ay soo abaari oo ay yani iska celin marka halkan waxaan sawiray viruska ayaan rabaa inaan raalli ahaada waxaan rabaa hadaba halkan inaad sawirataan inuu dubkii ama muxuu ahay hawameeranada si uu hadda xanuunkii jirkeena uu ku soo galay oo waxani waa virus wuxuu la kulmay hadaba unugyo badan oo askar ah oo waxay sameyn way liqi way cuni siday sameeyaan dagaalku ay tahay halganku way liqi kulligood way cuni qaarkoodna qaar kamid ah oo sidan oo kala fara yaraha dheer u leh waxay sameeyaan qayla dhaansi markay sameeyaan kuwani micnaheedu waxa weeyaan in ilaan kuwana hawl bay ku jiraan oo halgan bay ku jiraan oo xanuunkii wixii soo saameeyay bay iska celinayaan oo jirkii kaar baa jira iyo xanuun kuwana qayla dhaansi bay tagiyo intay gabal kamid ah waxaan hadda lala dagaalamay intay tagaan iyo orod si dhigi way birman waxay u tagi qanjidhada Soomaaliland arag markuu qofka xanuunsan yahay qubanku inay bararaan oo kale jirkeeno dhan qanjidha ku yaala qanjidhadaas waxa degan unugyada specialka ah maxay difaaceena khaaska ah kuwaas ayay u soo bandhigi oo la dhihi war waaleena soo galay waxan miya taqaanaan sideebaan isaga celina unugyada hadaba xagga dambe ku jira oo hada generaal la sawiran karo kuwa hada muhiim oo xagga dambe ku jira iyagu aan qaabilaynin wixii ina soo galay markii hore loo keenayo loo soo bandhigayo wixii ina soo weeraray waxay sameyn waana kana idin sheegay hadda idin sheegi doono difaaca khaaska ah waxay sameyn hub khaas u ah waxaan ina soo galay marka halkan bil mathalan ku sawiri waa sidii hadda AK47 dilaya ama oo loogu talagalay xanuunkan khaaska waa sida darteen carruurta yaryar oo kale busbus ama hablabaas hadii uu ku dhaco kuma soo noqdo sababta oo ay tahay difaacini khaaska ahaa ayaa hub gaar sameeyay oo isla markaba haduu xanuunku damco inuu soo noqdo ka takhalusi hadaba hadan difaaca idin sheegay sidoo sameeyay oo hubkan gaarka ah ee khaaska ah ay ka uu ka hawl badan yahay ka khatarsan yahay unugyadan hore ee askarta hore ee hadee wax walba oo soo gala liqda oo intay wareersan yihiin ay kuwani hadee hubkan ay u iman talaalka waxa la rabaa si uu jirkeenu hub khaasa u sameeyo waa antibodies waxa af ingiriiska loo yaqaan ama antistoffer of Norwegia si uu jirkeenu hub khaas ah uu u sameeyo oo si dhaqso ah isaga celiyo isaga takhaluso ayaa jirka la moodsiin in la soo weeraray lama weerarin oo dhab ahaantii xanuunku qofka ma saameynin laakiin talaalka marka qofka lagu shubo
sidaasuu moodsiin haddaba labada tallaal ee norway hadda ka jira nooca ay u shaqeeyaan waxaa weeyaan hadda haddaan bilmathalan idiin sheego tallaalka qaaxada oo kale ama tiibishada waa bakteriyadii laftirkeedii xanuunka keeni lahayd oo qayb ka mid ah oo haddee aan jirka xanuun u keenaynin yaa lagu shubi jirka laakiin tallaalkani wuu ka duwan yahayoo xanuunkii covid-19ka ma aha ee waa habraac ama wax uu jirku unugyadeena marka uu soo galo unugyadeena ayaa samayn wax fayraskii u eg صح wax u eg markii unugyadeenu sameeyaan kuweeni difaaca sidaan idin tusay markii dhaweyto ayaa wixii u ekaa oon hadda fayraskii ahayn ee jirka uu sameeyey ayay iska celiskaas iyo muxuu ahay la dacaala dhacayaan isla qofku kaariya waxaasuu dareemay marka la tallaalo waxa weeyaan difaaceenu shaqaynayo isku daya hub khaas ah inuu sameeyo oo deedna berri ka maalin xanuunka haddii uu sameeyo oo qof kale uu ku daarto oo uu damco inuu intuu soo dhuunta hawamareenadani soo dhaafay oo soo galay ilbiliqsi baa lagu takhalusi sidaasuu maxay tallaalku uu u shaqaynayaa waxaa haddaba jira su-aalo badan dadku isweydiiyaan oo ah oo hadda tallaalku isagii dadka qaarkood ay la dhinteen oo muxuu ahaaye jirka uu intuu haddee xinjiro dhiiga u yeelay anagu waxaas ma rabno midda kalena tallaalkani waa mid laba muxuu ahay hadda waqti aad u yar ilbiliqsi lagu sameeyey oo aaminba ma aha aamin wuxuu ku yahay technologyga tallaalkani uu ku salaysan yahay waa mid 30 ilaa 40 sano laga soo shaqaynayay wax walba oo hadda lagu talagalo in kharash lagu bixiyo oo maxay hawl la geliyana dee waa la soo saari karaa marka intaasoo processyo oo badan ayuuna soo maray si uu maxay aamin u noqdo oo loo qaato tallaalkan haddaba AstraZeneca-da ah ee maxay iyo noocyo u eg oo xinjiro dhiiga u keenay Norway waxay dhaheen anagu ma doonayno ingiriisku waxay dhaheen cidii dhimana ha dhimato xanuunka laakiin dheefteeda ayaa ka badan dhibkeeda waanu ku talaalanayna anagu dadka haddaba Norway waxay la soo hareen laba tallaal oo Moderna iyo Pfizer la dhaho waadna la socon doontaan haddii hadda wax kale ay yimaadaan laakiin labada tallaal oo kaliya labada nooc kaliya ayaa Norway maanta jooga labadubana waa kuwa habraac ah oo xanuunkii laftirkiisii aan muxuu ahayd wax u eg aan laakiin jirku isagu uu sameyn wax u eg oo dadna sidaa isaga difaaci baa hadda la sirayaa si uu hub khaas ah u samaysto waxa hadda xinjirana midda kalena xinjiraha xanuunka laftirkiisa xinjiro wuu keenaa covid-19 waa la arkay marka laakiin kuwan waxa hadda xanuuno badan iyo wax lagu arkay ma jirto midda kalena dadka qaarkood ayaa dhahaa dee waaba dhalma joojin haddaad talaalka qaadato oo rajab haddaad ka qabteen ilmo dhasho talaalka isku taabanin wax allaale wuxuu shuqul ku leeyahay dhalmo iyo dhalmalaan ma jirto qofka cilmiga ula jirka xataa hadda fantasigaaga isticmaashada wax iska sawirato maba keeni kartid inuu hadda saameyn ku yeesho muxuu ahaye dhalmada taasi waa qadar ilaahay haddii intaad istallaasho hadhowtaan ilma heli weydo dee waa maxaa ilaahay buu aayad quraan ku leeyahay cidaan rabnana wiilal baan siinaa cidaan rabnana gabdhaan siinaa cidaan rabnana waan isugu daraa cidaan rabnana waxba lama siiyo marka taas in la aamino midda kalena rasuulka sal ly slam inuu yidhi tawakal cala allah awrkaagana xidho haddaba jirkaagu wuxuu samayni wax covidkii u eg laakiinse aan ahayn oo uu difaacaagu u malayn in lasoo weeraray uuna samayn hub uu iskaga celiyo marka qofka la tallaala haddaba ee uu difaaciisa u maleeyo inuu lasoo weeraray uu xanuunsan yahay wuu qandhan kaar buu dareemi waxaa dhici karta inay murqa xanuun iyo lafa xanuun uu dareemo waxaa dhici karta muruqa meesha laga talaalay hoosteeda inuu gacanta qaadi kari waayo waxaasoo dhan waa wax caadi ahoo wayba fiican tahay oo jirkaagiibaa hadda halgan ku jiro isle waxaan iska celi oo hub khaasa samaynaya haddaba laba jeer ayaa qofka la talaali waxa labada talaal ku jira waa isku wax waa uun jirkaaga oo la rabo hubka laftirkiisa aan idiin sheegay khaaska antibodiska yaa sii kala khatarsan marka ka ugu sii ka ugu sii khatarsan inuu jirku sameeyo ayaa la rabaa haddiise qofku horey uu xanuunka covid-19 ugu dhacay hal talaal kaliya ayaa la siin oo xanuunka isagoo 3 bilood ay kasoo wareegtay kadib ayaa hal talaal kaliya la siin dadka kalena labaa la siini waxaan rabaa inaan wax ka sheego talaal ka
in aad qaadato maxay keenay de waxay keenay inay xanuunkii uusan hadda si safmara uusan adduunka u saameynin ee wixii uu kala dego adduumadana dib loo furo talaal la'aantu haddaba waxay keeni in hadda waa isaga laleeyahay basaboor la xidhiidha hadda vaksiinka dadka talaalan uun inay wadamada qaarkood ay soo gali xaj iyo cumro oo kale inuu qofku talaalanyahay mooyaane ma uu aadi karo meelaha qaarkood xataa dadka shaqaalaha ah waxaa laleeyahay dadka diiday iyagoo loo soo bandhigay talaalka diiday meelo kale in la geeyo ayaan rabnaa oo haddii uusan xanuunku si uusan usii faafin marka haddaba aynu ka fiirsano oo muxuu ahaayey talaalka in la qaato waxaa ugu horeynta horta adiga caafimaadkaaga ayay danta ugu jirtaa midda labaadna faamilkaaga dadkaad ku dhex jirto bulshadeena soomaaliyeed iyo bulshada aynu ku dhex jirro iyo waddankan aan deganahay xitaa marka inaan mas-uuliyaddaas isa saaro biidni illaahi alkariim waxaan rabaa ina aan kusoo gunaanado waxaan rajaynayaa inay dad badan rabaan inay talaalka ay qaataan laakiin meelay ka helaanba ay laayihiin waxaan haddaba rajaynayaa hadda inay jiraan dad badan oo raba inay istalaalaan insha allah ani laftirkayga waan istalaalay sidaan horeba idinku soo bandhigay February ayaan talaalka qaatay dhibna ma arag dadka haddaba raba inay istalaalaan waxaad ogaataan in laga bilaabay talaalka dadka da'da ah ee waayeelka ee xanuunka u nugul waxaana muxuu ahay loo soo socdaa hoos hadda 90 jiro 80 jiro muxuu ahay 70 60 50 sidaasaa loo soo socdaa iyo dadka xanuuna gaara qabo hadda jirkoodii difaacoodii xanuun kale la daalaa dhacaya inuu covidku ugu soo darsamo dee saameyn weyn bay ku yeelan marka iyagoo xataa da'yar ah ayaa talaalka la siinaya marka haddii aad ka mid tahay guruubyada talaalka la siin lahaa laakiin weli aan lala soo xidhiidhin telefoonka corona telefoonka waxaa dad ama turjubaano ah ama haddii caafimaad ka shaqeeyo af soomaali ku hadlaya ayaa kuula hadli oo aad u sheegi kartaa talaalkan u baahanahay da'daydu waa sidaa ama xanuun hebel baan qabaa waxaan u baahnaa in la italaalo mar tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu